BBC lana loo kala hadlaysa muujadaha gaagaaban kuwa FM ka iyo internet-ku naga dhageysan kartaan bbcsomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaana waxaa ka mid ah xiisada ka taagan weli koonfurta Suudaan. musharaxiinta madaxtinimada Puntland ee la tartamaya madaxweyne Farole oo sheegay in madaxweynaha isku afgaran waayeen maanta qodob muhiim ah. asaas uu qodobka ugu horeeya madaxweynuhu waa naga diiday qodobkii ugu horeeyay oo ah inaan ku bilaashno madaxweyne. xiisadaha colaadeed ee gobolada Shabeellaha Hoose shir ku aadan oo Muqdisho maanta ka dhacay dadka la haybsooco ee Somaliland oo qabanaya iyo warar kale oo caalamka iyo Soomaalida ku saabsan. وورين ورك عالمكو هديار محمد محمود عدي سيد عبد الرحمن حكومة كونفورت السودان ayaa sheegaysa in ninka ay ku eedeynayso inuu isku dayay in uu xukuumadda afganbiga oo ka cararay magaalada Juba ee caasimada ah waxaana la socday ciidamo asaga daacad ah. wasiirka warfaafinta ee koonfurta Suudaan ayaa u sheegay BBC-da in ciidamada dawladda ay daba joogaan madaxweyne ku-xigeenkii hore مشاع halkaad warkaas ka dhigaysanaysan waa BBC lana مثلا محمد محمود عداي وها ونala socodsiinayay warka caalamka oo kala socoteen mujadaha gaagaaban kuwa FM-ka iyo internet-ka oo naga dhageysan kartaan bbcsomali.com. markana Puntland iyadoo ay noo soo socoto warbixin ku aadan dadka la haybsooco ee Somaliland oo cabanaya. musharaxiinta madaxtinimada Puntland ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen waxay ku sheegeen in madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole ay isku afgaran waayeen hadal maanta ay yeesheen. wadahadallada ayaa salka ku hayay xulidda guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland oo 7 xubnood ka kooban. haddaba waxaa telefoonkan kula xiriiray Cali Xaaji Warsame oo loo magacaabay afhayeenka musharaxiinta madaxtinimo ee Puntland. waxaan Cali weydiiyey waxa uu yahay ujeedka shirka jaraa'id ee maanta ay qabteen. shirkiisu wuxuu ahaa waxaa jiray ballan hore oo aan la lahayn madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiraxmaan. ballantaasina waxay ku saabsanayd annaga oo codsanay si aan uga faa'iidaysano waqtiga yar ee doorashada ka haday inaan wada hadal galno si toos ah. waqtigii aan madaxweynaha u dirnay oo ah inaan la kulano wuu naga aqbalay. wuxuuna nagu codsanay madaxtooyada inaan ku wada hadalno. maanta shirkii marka dhacay wuxuu ahaa shir la socda codsigaas. madaxweynaha haddaan wada hadallayna waxaan u geynay qodobadii annagu aan u arkayna inay muhim tahay. qodobadaasina waxay ahaayeen kuwa awalba aan dalbanay inaan ka wada hadalno. waxaa ugu horeeyey waa gartay intaadan qodobada u gelin ka musharaxiin ahaan iyo madaxweynaha cid kaloo idin dhexaysa miyaa jirta? maya toos bay ahayd. codsiga annagaa lahayd madaxweynahuna waa aqbalay. asaguna waxaanu aqbalay inaan kula kulano xafiiska madaxtooyada. maxaa marka ka soo baxay kulankiinaas? kulanka waxaa ka soo baxay sidaan kuu sheegay annagu qodobaanu wadanay awalna aanu qaal ahaan ugu dirnay. qodobadaasna waxaa ugu muhiimsanaa qodobka ah inaanu ku heshiino inaanu wada magacaawno guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha baarlamaanka. guddigaasi waa guddiga doorashada oo dhan aasaaska ah. nidaamkuna lahaan jira hadda ka hor. guddigaas haddaanu ku heshiino qodobada kale waxay ahaayeen guddi marjib u noqda oo isimada laga magacaabo oo isla weligii jiri jiray inaan ku heshiino si isimada usoo magacaabi lahaayeen. labadaa guddina aanu u samayno POR ama Terms of Reference qaabkay u shaqayn lahaayeen. doorashadaasna inay international community kala joogaan iyo weliba dadka localka ah sida bulshada rayidka iyo dadka waxgaradka ah. afartaa qodob bay ahaayeen laakiin asaasku waa qodobka ugu horeeya. madaxweynuhu waa naga diiday qodobkii ugu horeeyay oo ah inaan guddigaas la magacaawno. wuxuuna ku adkaystay inuu isagu magacaabayo waxna uusan ka bedelaynin. taasaana keentay inaan war ku heshiin shirki. waa gartay Cali Xaaji marka madaxweynuhu miyuusan xaq u lahayn inuu magacaabi karo? waa dhici kartaa in la tashi uu la yeelan karo qaybo kala duwan oo bulshada ah laakiin magacaabida ugu dambaysa isaga soo ma laha. ولا كنت قرأت مثل وارد صلى الله عليه وسلم ورشادنا ورشادي أفراد وكذا على بلدنا ورشادي كان كور رئيسي مدحونه وشرف
sameeyo saddexda ay soo magacaabaan musharaxiintu dabeedna hadda arrintan wuu aqbalay hadalkiisi baa la hayaa madaxweyne cabdiraxmaan oo markaa ahaa gudoomiyaha musharaxiintana waa aqbalay hadalkiisina waa la hayaa taasaa marka reference u ahayd in guddigaas la wada magacaabo anaguna intiibaan dalbanay waxaana halka qolku dhamay anaguna intaabaan dalbanay waxaanad ogaataa annaga ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ismada kulli waxaan isla waafaqnay doorashadan hadda dhacaysa waxaan reference waaba marjico ah doorashadii ka horeysay 2018 waa gartay hadda haddii taan laisku afgaran madaxweynaha sida aad leedahay adigu uu yidhi sidii aan usoo magacaabay ayay ahaanaysaa oo 7 xubnoodba in isaga uu magacaabo idinkina maxaad ku diidaysaan oo ku qoonsantiin xubnahaasi 7 ee madaxweynuhu magacaabo waxaan ku diidanaa marka ugu horeysa heshiisay ahayd aan isku ogeyn annaga iyo international community-ga meesha caalamka ciddi looga timid oo ugu horeeya xafiiska SRSG-ga iyo madaxweynaha iyo weliba ismadii loola tashaday in guddigaas si wada jir lagu magacaabo dabeedna madaxweynuhu digriga magacaabida uu soo saaro ugu horeyn halkaa waxaa ku jabay heshiiskii aan ku heshinay oo hore waxaa midda labaada madaxweynuhu xaq uma lahayn sidii lagu heshiiyey inay doorashada ay marjigeed iyo doorashadii ka horeysay in guddigaas keliga uu magacaabo xaq uma lahayn waana la isku ogaa midda saddexaadna guddigan maadaama iyo guddiga doorashada asaaska u ah waxaan u aragnaa wax fara badan inay ka khaldan yihiin oo tarkiibada iyo dadka guddiga ku jira marka laga reebo xataa qaabka loo magacaabay arrintaasna horaan uga soo saaray bayaankiyagii annaguna guddi kalaanu magacaabnay sidaa socotay musharax madaxweyne puntland cali xaaji warsame ayuu ahaa qaar ka mid a madax dhaqameedyada bulshada la haybsooco ee somaliland waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan